Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu canhu ayaa wuxuu yidhi, waa kuma ninkan warkiisa uu ka soo horeeyo abtirkiisa. Markaasaa lagu yidhi, waa Muthanna ibn Xaaritha ash-Shaybaani. Nasabkiisa waa la yaqaanaa, umana baahna falanqayn. فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود أبى العز أبين هكذا طبع الأسود. فإلى الله مضينا عن حمى الدين نذود أبى العز أبين هكذا طبع الأسود. سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال. Nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu u soo baxay suuqyada magaalada Makka si uu dacwada u gaarsiiyo dadka imaanaya suuqaas. Garbihiisana waxaa socday Abu Bakar as-Siddiq iyo Cali ibn Abi Taalib. Iyagoo socdo ayaa waxay arkeen rag ay ka muuqato haybad. Abu Bakar ayaa weydiiyey cidda ay yihiin, waxayna ugu jawaabeen, reer Bani Shaybaan bin Thaclaba ayaan nahay. Abu Bakar as-Siddiq ayaa markaas waxa uu ku yidhi, haddii aad maqasheen arrinka nebiga la soo diray, waa kan hortiina taagan. Nebiga ayuuna u tilmaamay. Waxay dhaheen haa, waxayna rabeen inay la hadlaan nebiga. Nebiga ayaa fadhiistay, Abu Bakarna wuxuu istaagay nebiga gadaashiisa si uu qoraxda uga harayo nebiga. Nin lagu magacaabo Mafruuq bin Camar oo la socday ragga dhinaca nebigana fadhiyey ayaa wuxuu yidhi, dadka maxaa ugu yeertaa? Nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi, alle inay rumeeyaan oo aysan u shirki yeelin, iyo inay rumeeyaan anigana inaan ahay rasuulka Alle, ayna ii yimaadaan iguna kaalmeeyaan si aan u guto amarka Alle. Wuxuuna ku aqriyay aayado Qur'aan ah. Mafruuq ayaa wuxuu yidhi markaas, alle ayaan ku dhaartaye, kani ma ahan hadal makhluuq, hadduu ahaan lahaana waa garan lahayn. Muthanna ibn Xaaritha ash-Shaybaani oo ahaa odayga iyo hogaamiyaha ciidan ee cidda, kana mid ahaa raggii socday, ayaa yidhi, waan maqlay hadalkaaga, waana wanaajistay, laakiin arrin midkan oo kale ah waxaa muhiim ah in odayaasha cidda loola noqdo. Wuxuu kaloo yidhi, annaga waxaan heshiis kula galnay Kisra boqorka Faris, arrin cusub inaan soo kordhinin, mid wax cusub wadana aan soo dhowaysan. Maadaama aan ku hoos noolnahay isaga, waxaa laga yaabaa inaanu ugu wacayso wixii dhibayay Kisra, annaguna ma awoodno inaan la galno dagaal. Kadib iyagoo bixi rabo ayuu nebiga ku yidhi, ka warrama haddii alle uu idin siiyo dhulka Faris, dumarkooda iyo hantidoodana aad yeelataan, alle ma caabudaysaan markaas? Waxay dhaheen haa, ma samayn kartaa arrinkaas? Nebigana wuxuu ku yidhi haa. Muthanna wuxuu u laabtay deegaankiisa, mar walbana wuxuu sawiran jiray wejiga nebiga, dhagihiisana waxaa ku soo noqnoqonayay erayadii uu ku yidhi nebiga. Sanadkii 9aad ee Hijriga, Muthanna oo hogaaminayo koox tolkiisa ah ayaa u soo wafdiyey nebiga si ay diinta xaqa ah uga qaataan, waxayna la mubaayacoodeen nebiga. Laakiin nebiga sallallahu calayhi wasallam waqtigaas kadib wax badan ma uusan sii noolaan oo geerida ayaa u timid. Markaasna carabtii waxay bilaabeen diinta inay uga baxaan koox sidii ay markii horeba u soo galeen. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu canhu ayaa hor istaagay fitnadaas, isagoo difaac ka dhigtay geesiyada ku adkaystay diintooda oo aysan qaadin dabaylaha fitnada ah. Muthanna iyo tolkiisa waxay ka mid ahaayeen geesiyaashaas wacdaraha ka dhigay dagaaladii riddada. Muthanna waxa uu hogaaminayay 8,000 oo haliyey, amarkiisana aan caasinayn, mar walbana dhagihiisa waxaa ka guuxayay hadalkii nebiga uu ku yidhi. Isagoo aaminsan ballankii uu u ballan qaaday suubanaha, ayuu go'aansaday inuu duulaan ku qaado dhulka Ciraaq oo maamulka Faris ah, isagoo aan ka fasax qaadan khaliifka si uusan culays u saarin. Haddii uu guulaysto, guushiisa muslimiinta ayay u noqonaysaa guul. Haddii uu jabana,
jabkiisa isaga isku koobay. Muthanna wuxuu duulaan ku qaaday magaalooyinka Ciraaq, heer magaalooyinka qaar ay gacantiisa u soo galayeen sida caleemaha geedka ay uga daataan xilliga jiilaalka. Warka guushiisana wuxuu iftiin u noqday daafaha jasiiradda Carabta, heer Abuubakar uu yiri, yuu yahay ninkan ay guulihiisa inay soo gaarayaan inagoo aan waxba ka aqoon. Jawaabta su'aashaas oo socoto ayaa timid magaalada Madiina. Muthanna wuxuu u yimid la kulanka khaliifka isagoo uga waramayo duulaankiisa Ciraaq, wuxuuna u tiriyey meelaha uu ka furtay cadowga kuna soo daray dowladda Islaamka. Abuubakar as-Siddiiq ayaa markaas wuxuu diyaariyey ciidan xooggan. Muthanna wuxuu ka dhigay hogaamiye ka mid ah hogaamiyayaasha ugu waaweyn ee ciidankaas. Dagaalada Muthanna uu la galay Furus waxaa ka mid ah dagaalka caanka ah ee lagu magacaabo Baabil. Wax yar ka hor inta uusan bilaaban dagaalka, Shahardaan oo ahaa boqorka Furus ayaa Muthanna u soo diray fariin, wuxuuna ku yiri sidaan: dagaalkaaga waxaan u soo diray dadka doorada iyo doofaarada dhaqdo iyo maangabyada la midka ah, iyaga ayaan kugula dagaalamayaa. Muthanna wuxuu ugu jawaabay sidaan: Alle ayaa u sugnaatay mahad idilkeed oo dhagartiina ku celiya dhuuntiina, idinna baahiyey doofaar dhaqatada inay naftiina idin difaacaan. Beri marka ay kulmaan labada ciidan ayay daalimiinta ogaan doonaan cidda iska leh guusha. Markii ay kulmeen labada ciidan, ciidanka Faris oo kumanaan kun ah waxaa hogaaminayay nin lagu magacaabo Hormuz. Sidoo kalena hortooda waxaa socday maroodiyaal waaweyn. Maroodiyaashaas waaweyn gacmahooda ayay ciidanka muslimiinta ah marba dhinac ugu tuurayeen, cabsina way ku abuureen. Muthanna wuxuu ogaaday inaan la helaynin guul maadaama xayawaanadaas waaweyn ay dhibaateynayaan ciidanka. Markaasna wuxuu diyaariyey qorshe looga takhalusi karo maroodiyaashaas. Ugu dambeynna uu ka takhalusay. Takbiirta ciidanka muslimiintana hawada ayay isqabsatay. Wax yar kadibna dhabarka ayay jeediyeen qowsaaradii meesha la keenay. Hogaamiyahoodii Hormuz ahaana kama uusan harin. Muthanna wuxuu gacanta ku dhigay Baabil, sidoo kalena wuxuu ka helay qaniimo aad u fara badan. Cod dheerna waxa uu ku yiri, run ayuu sheegay rasuulka Alle, run ayuu sheegay nebiga Alle. ديننا الفاروق عنوان الرجول